دينا بها دكسي لغا دكتا روح كل دغو كل دينا بها دكسي لغا دكتا مروا داعدو كودير نحلا ثم لغا حشا مروا داعدو كودير نحلا ثم لغا حشا ذهب إيو حرير كيد دون تبا تشلو سورا تشلو سورا تشلو سورا تشلو سورا مروا داعدو ودير نحلا دمر لغا حشاي مروا داعدو ودير نحلا دمر لغا حشاي ذهب إيو حرير كيد دون تبا دشلو سورا دشلو سورا دشلو سورا دشلو سورا درجة أدوم داد يذكر سلام كدك يا عروسك كدك درجة أدوم داد يذكر سلام كدك يا عروسك كدك oo caawa aan leenahay halkan laga wada jaanqaado waxaa sharaf loo ah oo loo jooga xildhibaankeena sharafta leh Cabdullaahi Shaacir oo halkan asina caawa nooga warbixin doona haddii la yiraahdo oo caawa dowladda xaggeeda looga socdo waxaan leenahay mudane Cabdullaahi Shaacir aad ayaan ku soo dhaweynaynaa waxaana sharaf noo ah kasoo qaybgalka iyo kasoo qaybgelidda ayaa nagala qayb qaadatay waxaa kaloo sharaf noo ah walaalaheen kale oo iyaguna cawaalkan ka soo jeedi doona kelmado macnaha anfaca oo Soomaalida ah waxaan rabaa inta aan barnaamijka bilaabin in aan ku soo dhaweeyo sida barnaamijku kala horeeyo Cabdirashiid Salaad Nuune oo isagu kelmado nooga oran doona Cabdirashiid Nuune ku soo dhaweeyo السلام عليكم waxaan halka mutashash oo ah dhammaan ka soo qayb galay xafladan soo dhaweynta mudan iyo sanad guuradii koowaad madaxweynaha ku soo dhaweynayay iyo mutasharafta oo timid xildhibaankeena Cabdullaahi Shaacir waxaan had u celinaynaa sida sharafta loo soo qayb galay waqtigiisa qaali oo siiyay marka idinkana aad u mahadsantihiin السلام عليكم وماسنتا نونو يا كامبو waxaan rabaa inaan haddaan muslim ahay inaan ku furano aayadaha quraanka kariimka waxaan aadan ka nuucayaa Sheekh Ahmed inuu nagu akhriyo quraanka maadaama aan hadan islaam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة
آياته لعلكم تهتدون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيمتا حركة لغة بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورايا سوق كل حفلة أديكم معتصم ولا سوق من قابسين ينبانتين سيد شرفت لأقول تجي نقالك عن نص السنة. مرة وين أحد الملكة أخيه أما ما هي أقول لكم بين آية لكن سوق عن جعلها هاي إن نتعكد لكم تذكر حد دونا إن أي نقطة حضر عن حرف لحي قف صومالية ومعته أما أنت جوجا أما مالك جوجا وقدرنا إن واحد بعتك نجيه أي كتب هذا حفلتنا أو فسامسن إسوي مثل ما ذهني يدور مثل ما ذهني إن عن هرمة جارنا حضرنا هاي صومالي وجدنا ومثلنا وجدنا وقرننا وجدنا وتاجرنا سنقول لك صورتي دولة الصومالية كعرض كأمان تنوصل برتي تاجرنا يوقت عمو هينو يوقت عمو صوب حني وحجعلان لين إن عارك أكو كرامة نضد كنا إن عمو هينو وحبو صديفة وحونا مكلي عشوشة دولة وحواصل قبضي وحبنا واجرايا وحبنا ولسوشيايا لكن أمان حجنا بسم الله الرحمن الرحيم waxaan mariyaynayaa maxamed mawlid iyo oo xafladda sharafta leh loo soo agaasimay ragga gabdhaha sharafta leh ee ka soo qayb aad baan idin salaamayaa dhammaan salaan dabadeed waxaa la yidhi waagii mustacmalku waqooyiga degay buu askar ka qortay isagoo barma u diray nin xoogaa laga yar fiican yahay baa wuxuu yidhi seer xaggaad loo wadaa wuxuu yidhi nin ragina waa garanayaa nacas meel loo sheegi waxaynu halka isugu nimid qof qaangaari waa garanaya dowladda soomaaliyeed waa fusus daygeedii ilaahay waxaanu ka baryaynaa tii dalka iyo diinta iyo dadkaba anfacda inay noqoto dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay ama dibad ha joogin ama guda ha joogin ama gobol ha joogeen wuxuu yidhi nin heesan nin gabli wuxuu yidhi miyir waxaad ku weydaan iswaal kuma mihiibtaan waxaad miyirqab ku weydaan iyo deganaansho waalli lagu heli maayo waxaan dadka soomaaliyeed ay ama guda joog ama dibad joogin wixii midnimo lagu waayo qaybsanaan iyo googolaan iyo kala xidhaan lagu heli maayo ogaana intaa waxaan ku daraya anigu gabayaan miihi laakiin erayo shacabku aan isku soo toosiyaan idinku daraya waxay yihiin dowladdoo dhaqaaliyo kuwa nabadda diidow waa maa qadaysaan aan idiin ducaynayn kuwa qaraxa guugee dumarka iyo carruurta iyo aqoon-yahanka dilayo war maad nadaysaan aan idiin ducaynayn dugsiyada qur-aanka iyo kuwa diinta necab ee gaaladu dirsanayso war maad nadaysaan aan idiin ducaynayn annagoo dal wadanaaloo dowlad qudho walaalaa kuwa dayrka ootee dadka kala maqobaya qaarba meeluu dumayo war maad ka daysaan aan idiin ducaynayn dilaalka iyo malaalkaa dabka laga dhex shidaya hadba qolada degaye inaanu dowlad necab iyo deganaanta necabow war maad nadaysaan aan idiin ducaynayn baraf baana war waa dayacan baraf baana dilaya aan dalkii ku noqono xabadda ma idin daysaan war aan idiin ducayne
وروا ضيعان وبرف بان الدنيا يا عن ذلك كل قلنا أنا دين دعيني حفظ بيد الديسان وعلى لا يا مركان لما أنت أما تقول شو أما تقول شو ومدى الصومالية مدنمو ولا شيء waxay ku weyno heli mayna haddaynu maalinba kii soo fuulan labada lugood ku dhigno ma dibadaynu ka dalbanaynaa madaxweyne kale haddaynu keeni yimaadaba labada boqolood la baxno oo xagga tashuush ka furo oo xagga ka furo oo xagga ka furo oo banka u dhigno oo dusha ka qarxino oo dumarkiiga carruurta layno xaggee dad u doonanayno xaggee dad u raadsanayno madaxweyne ma ingiriiska inoo keenayo ma maraykanka inoo keenayo ma carabba inoo keenaysa kii inaga dhashaba haddaynu kii inaga dhashaba haddaynu hebel diidni hebel diidni hebel diidni hebel diidni yaynu rabnaa sidee baynu rabnaa inaynu isbaaro isu dhiganno oo baabuurta kala dhacno oo gabdhaha la kubsado oo la qalo oo beraayo lagu dhigo miyaynu rabnaa soomaaliya ilaahay haydu waafajiyo diintiina iyo dalkiina iyo dantiina ilaahay haydu waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan markaana inaan barsiiyo cabdiqaadir xasan dhageeyey cabdiqaadir sugow بسم الله waxaan ku salaamaa salaada islaamka war badan inta uma imaanin waxaa la eegmaday in aan wax ka tilmaamo waxqabadka dowladda intii la garan karo ilaa xad iyo ujeeddada xafladda waxa ay tahay dabcan ujeeddada aan meesha hadda caawa aan suulin waxa waaye xafladda sanad guurada ka soo wareegatay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool meelaha ku kala dhammaan dadka soomaaliyeed ku kala nool meelaha kala duwan ee adduunyada gaar ahaan kuwa ku nool Denmark Copenhagen waxaan dhammaanteen u dabaaldegaynaa muddadii halka sano ahayd ee dowladdan aan ku meelgaarka ahayn oo ah dowlad rasmi ah haddaba waxaan taageeraynaa waxqabadka muuqda muddadii ay jirtay dowladdan qodobkooda in weli aysan dhagaha dadweynaha Soomaaliyeed maqlin intii dowladdan uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamed ee ay jirtay taas oo ah in weli aysan dhicin khilaaf ka dhex dhaca hoggaanka sare ee dowladda sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka waa guul la taaban karo inay aad wax uga qabatay siyaasadda dibadda oo in ka mid ah siyaasadda dibadda ay ku soo noqotay gacanta dowladda Soomaaliyeed sida in wax badan aan loo yeelin marka ay noqoto sidee noqonay xalka Soomaaliya oo ay jirto in caalamku uu aqbalo waxa ay dowladda Soomaaliya ka dalbato adduunka muran shaqo waxaan rabnaa inaan mar kale kugu soo dhaweyno magaalada Copenhagen adigoo annaga sidaan ku shaqeynaa noo shaqeynaa waxaan rabaa inaan kugu soo dhaweeyo mikrofoonka xildhibaan Cabdullaahi Shaacir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلابات وحنكم هاد علينا dadkii xafladan qiimaha ay qaayaan soo qaban qaabiyay oo sharafta leh quruxda badan waa u hambalyeynaya hadalku waa maasantiina kuma filna ay kulaaliyaan waa maasantiina marka labaad waxaan u mahad celinayaa dadkii ka soo qayb galay gabdhaha iyo wiilasha oo dalkooda jecel sida runta ah inta ka soo qayb gashay ayagana waa u mahad celinayaa
intaan hadalkeydii sii guda gelin waxaan jeclaan lahaa inaan cambaareeyo labadii fal ee waxashnimada ahaa ee ka dhacay Soomaaliya waa kii Muqdisho ka dhacay ee dadka masaakiinta ay ku baaba'een waxaana leeyahay Ilaahay ha u naxariisto waxaa kaloo aan ka tacsiyeynaynaa aan ka xunnahay aan muujinaynaa inaan ka xunnahay falkii kaloo waxashnimada ahaa oo isagana ka dhacay Kismaayo oo lagu qaarijin lahaa ninkii saaxiibkeena ahaa ama gudoomiyaha ooga dhigay Jubbooyinka Axmed Madoobe waana cambaareynayna waxaan u malaynaa inay la cambaareynaysaa adan raallina ka ahayn waayo naftaan ilaahay baa iskale ilaahay baa goon kara waana qalad qof bini aadan inuu qofka kala dilo ama uu ku xadgudbo waxaan kaloo idiin sheegay aniga xildhibaankiina aan ahay yaa maadaama